waxaan si guud u rabaa inaan u dul marno maadaama oo aanu nahay golihii fulinta deegaanka madashan oo kale marka la imaado hadalka siyaasigana inta badan afkayga laga dhowrayo inaanu carabka toos ugu dhufano deegaanka Soomaalida muddadii ugu dambeysay isbedelku ka dhacay shacabka Soomaaliyeed ee deegaankeena ku dhaqan waxay meel kasta iyo goob kasta oo la tago ay ka hadlayeen ama tabashadoodu ahayd in structure-ka ama muwaaqirka ama qaab dhismeedka dawliga ay tabasha ay ka qabeen in la ballaariyo ayay ahayd dawlad ahaan iyo xisbi ahaan waxa la isla qaatay sidii loo ballaarin lahaa inay noqoto si ka turjumaysa baahida shacabku ay qabaan la isla waafajinayo muxuu noqonayaa qaabka loo biirinayaa halkee loo marayaa wadadee loo marayaa iyo qaabkee ugu habboon ee qaab dhismeedka dawladda aynu leenahay loo ballaarin karaa qaab dhismeedka dawladnimo ee ballaarinay ama hadda aynu qayb ka mid ah ay harta sheekhu maanta ka mid tahay waa qaab dhismeed si cilmiyeysan siyaasadaysan deegaanka Soomaalida Soomaalinimada lagu ilaalinayo jiritaanka deegaanka lagu ilaalinayo adeega horumarineed ee deegaanka Soomaalida dawladdiisu ay shacabka siiso loo baahan yahay in la gaarsiiyo goobihii ku habboonaa waa qaab dhismeed waqti badan la geliyey muddo badanna laga soo baaraan degay xilligii ku habboonaana yimiday ka dawlad ahaan baanu qabnaa anagu qaab dhismeedkan waxaa rukun u ah ama aasaas u ah koow deegaanka Soomaalidu inuu noqdo deegaan ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqanay Ilaahay ku abuuray ay yihiin deegaan ay go'aankiisa ugu dambeysay isagu ay gaari karaan deegaan lagu sugayo xuduudaha aynu la leenahay wadamada ay mujaarka nahay dadyoga Soomaaliyeed ee deegaankeena u dhashay tabasho da'tirsatay qarniyaal iyo duyaal badan jirtayna looga jawaabay la dareensiiyey in loo maqnaa deegaankan ay ka mid noqdaan ama ay matalaad siyaasiya ku helaan ama matalaad dhuleedoo maamula ay ku helaan oo caawa aad markhaati ka tihiin dhammaantiin in darafyada deegaanka meelo badan looga dabaaldegay lana soo dhoweeyey si qurux badanna ay shacabku uga mahadnaqeen muwaaqirka dawladnimo ee la ballaariyey ma yahay kii aynu u wada baahnayn may weli kuwa badan aynu u baahannahay baa jirta laakiin maalin walba hayteenna iyo tabarteenna iyadoo laga duulayo ayay maanta halkaasi ina gaarsiisay berri ka maalin maadaama oo xadhiggii la furay uu socon doonaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqan ee qaybaha kala duwan ee deegaanka degan ee mudan iyaguna inay helaan qaab dhismeedkan oo kale ama ku ka duwan ah inay gaarayso wareegyada dambe loo fikirayo oo laga sii shaqeynayo qaabkii loo sameyn lahaa ayaa taladeeda lagu jira arrintaasina waa fariinta aan la wadaagayna shacabka guud ahaan deegaankeena ku dhaqan dad Soomaaliyeed oo deegaankeena deganaa oo matalaad maamul matalaad siyaasadeed aan deegaanka hadda ka hor ku haysan ayaa caawa haysta kuwa kale oo mudan oo Soomaaliyeed oo iyagana loo soo socdaa jira laakiin in wixii tabasho ah miiska sida garaadadii odayaashu sheegeen harta sheekhu ay 30 sanaday sabraysay sugaysay in aan rajeeyno sida garaad kulmiye sheegayaan 30 sano ay dawladdu ku qaadanin dawladuna ay tahay dawlad u dhageysanaysa shacabkeeda si dhaqso ahna looga jawaabi doono ayaan rajeynaynaa in sida garaadka iyo dhaqankuba ay sheegeen xadaaradii magaalada la soo celiyo dadka Soomaaliyeed ee deegaanka magaalada deganna ay maamulkeeda iyo dhaqankeedu ay soo dhoweeyaan magaalo sidii hore u shaqeysa oo loo wada dhistana ay noqoto ayaan kula dardaarmayaa shacabka iyo gudaha ugu dambeyntii waxaan ku mahad celinayaa oo mahad gaar ah siinayaa shacabka harteeda fadhiyana aan jeclahay inay maqlaan deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar muddadii isbedelka ka dambeysay tabashada shacabka su'aasha soo noqnoqonaysay mar kasta oo ay shacabku soo qaadaan waxa tusaale loo soo qaadan jiray magaalada harta sheekhu hawsha ay keentay ama dacwadda ay wada waa gar baa mar walba loo soo qaadanayay maanta aynu taaganahay xilligii laga jawaabay magaalada harta sheekha taa waxaad ka garanaysaan xukuumadda hadda joogtaa inay u dhagan ugu shahay shacabkeeda ay dhageysanayso
maadaama harta sheekho muddaynta la maqnaydba ay maanta ay tahay qaab dhismeed dawladeed oo deegaankeena ku soo biiray